السلام عليكم. soo dhawaada asxaabta Fariida meel kastoo adduunka ka joogtaan. maanta Fariida waxay idiin wadaa qiso aan ka aqriyay website oo mid aad iyo aad u xanuun badan oo ku dhacday gabadhan dhalinyarada idiin muuqata. gabadhan waa gabar muslimad asalna ka soo jeedo wadanka Pakistan, laakiin waxay degan tahay Mareykanka, New York, xaafadda la dhaho Long Island. gabadhan waxay ahayd gabar ardayad oo barata jaamacadda Hofstra. sidoo kalena waxay ahayd gabar shaqaysato xilliyada qaar. maalmaha kamid waliba waxay ahayd xilli fiid horta shaqada badanaa waxaa kasoo kaxayn jirtay hooyadeed oo gaariga hooyadeeda ku dooni jirtay, isla markaasna way soo raaci jireen. waxaa dhacday in habeenada kamid oo ahayd 17 Maarso 2021 inay gabadhan hooyadeed ka doontay shaqada. markii hooyadeed shaqadii ka doontay hooyadeed soo raacday guriga imaadeen, gaariga waxaa wada gabadha. hooyadii waxay sameysay, waxay u carartay musqusha, waxay tiri musqulaha rabaa, horey guriga ka gashay. gabadhan wax degdeg maysan qabin, tartiib gaarigeeda baakinka dhigatay. markii gaariga ka soo degtay isleedahay gaariga qaybtiisa dambe cunto ay soo iibsatay u saarneed soo degso, ayaa sikadiisa horteeda waxaa isu istaagay nin. aad u naxday ninkii markay aragtay, waxayna bilaawday inay qayliso. afka ay kala qaadaysa maahana ninkii wuxuu qabsaday, wuxuu watay koob camal wax uu ku jiro acid. gabadhii ay acidkiisi direct wajiga uga gudiyay. afkii ay kala heysayna waxay u gudubtay dhuunteeda, dhammaan wajigeeda qayb ugu muhiimsanaayna way qabsatay acidadii, yacni gaartay oo gubtay. sidoo kalena isheeda midigta way ku weysay. marka waxaa dhacday gacmaheedana way dhaawacmatay. hooyadeed iyo dadkii markay qayladii kusoo baxeen oo loo imaado la arkay gabadhii inay gubatay, isbitaalka la geeyay. intii isbitaalka lagula tacaalayay acidkii gabadhii wajigeeda way sii cuntay. waxay u geysatay, yacni wixii bedeshaba guud ahaan shape-kii wajigeeda iyo qaabku ahaa. sidoo kalena waxay dhaawac xoogan uga geysatay dhuunta cunaha. gabadhii waxay isbitaal ku jirtay muddo dhan 15 maalin. ugu dambeyn isbitaalka way ka soo baxday ayadoo qofkan hadda ujeedaan oo gabi ahaanba wajigeedii muuqaalkiisii uu isbedelay. waxay ku jirtay xilligii ugu macaaneed dhalinyaronimada. weliba waxay ahayd gabar hami sare leh oo doonaysay inay noqoto dhaqtarad, laakiin nasiib darro qofkaas xaasidka naxariista haba yaraatee lahayn wuxuu ku sameeyay gabadhan waxaad aragteen, kana soo saaray qofka aragteen. ayadoo ahayd markii hore maasha Allah gabar qurux Ilaahay u dhameystiray. waxaan leeyahay horta Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha caafiyo. waxa ugu darana waxay tahay maanta gabadhan waxay ku dhiban tahay cunista. sidoo kalena waxay yacni la-dahay cadaalad oo ilaa hadda qofkii dhibkan u geystay jaani cirib meel uu dhigo waa la la-yahay. booliska waxay ballan qaadeen inay abaalmarin sii doonaan qofkii sheego ama soo sheego qofkaas. haddii ayada ay sharaxi lahaydna si kadiisa qof hal mar kaaga soo horbaxay oo haddana indhihii wax kaaga shubay acid kugu shubay acidna xanuunkeeda qof walba wuu dareemi karaa. ma cabiri kartid, laakiin ayadu waxay sheegtay xoogaa inuu nin dheer ahaa. wadamadan oo qurbahana waxaa ka dhaco dhibaatooyin la xiriira nacayb oo yacni xaafadaha qaar oo kale haddaad degtid nacaybaa lagu qaadaya adoo qof muslim ama ajnabi ama qof kalar oo aadan cadaan ahayn. waxaa lagu qaadaa nacaybkaas bilaa sababtaa darteedna waxaa lagu geysana haddii la rabo dhibaatadan aad ujeedaan intay la eg tahay ee xanuunka badan. asxaabey muuqaalkan hadaa ka hesheen please like iyo share xaggiina waaye. mac salaamo.